وعني أدوية إنتان ولدي نورهاي وعني أدوية إنتان ولدي نورهاي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada sheekadii aan ugu magac darnay jacayl faqiir galay fidnadiisu badana wax cusub ma ahan inaad maqasho taariikh jacayl laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin qaabka uu abuurmay jacaylka iyo sida ay u maareeyeen lamaanaha uu ka dhaxeeyo jacaylka sidaa daraadeed waxaan halkan aan idinkugu soo gudbin doonaa sheeko jacayl oo aan horay idinku ballanqaadnay in aan idiin soo gudbin doono waxaad si taxana aad kala socod doontaan Mooga Studio haddaba ku soo dhawaada qaybtii koowaad sheekadii aan ugu magac darnay jacayl faqiir galay fidnadiisu badana Guhaad waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qoys danyara waxaana uu ku noolaa degmo ka tirsan magaalada Muqdisho waxa uu ku soo barbaaray nolol aad u adag marka loo eego qaabka uu wax ku soo bartay iyo sida adag ee ay noloshiisu u soo kortay waxaana waalidkiisu ay ku nool yihiin guri yar oo cooshada ka samaysan oo ku yaala magaalada Muqdisho waxayna ahaayeen dad ku wada nolol farxad leh inkastoo ay aad u danyaraayeen Guhaad waxa la dhashay 12 caruur ah laba kamid ah caruurtaas la dhalatay waa ay ka weynaayeen laakiin waxa uu kamid ahaa caruurta ay aad u jecel yihiin waalidkiisa maxaa yeelay waxa lagu tilmaamay inuu ahaa nin baari ah oo u roon waalidkiisa iyo qof walba oo ka weyn soo aysan awoodin inay geeyaan iskuul ama macad haddana waxay hooyadiis ay dhabarka u xiratay inuu wax ka barto iskuulada private-ka ah ee lagu barto luqadaha iyo xisaabta wuxuuna bilaabay barashada qoraalka af Soomaaliga iyo xisaabta laakiin muddo dhowr bil kadib Guhaad waxa uu si fiican u bartay qorista iyo akhrinta qoraalka luqadda Soomaaliga waxaana durbadiiba uu bilaabay inuu barto luqadda Ingiriiska waxaana uu wax ka bilaabay iskuul private ah oo caan ka ah magaalada Muqdisho wuxuuna nasiib u yeeshay in uu ka mid noqdo ardayda ay aad u jecel yihiin maamulka iyo macallimiinta taas ayaa sahashay in Guhaad uu garab weyn uu ka helo mid kamid ah macallimiinta iskuulka ee luqadda Ingiriiska wax ka dhigta iyadoo uu sidoo kale uu noqday arday ka duwan ardayda kale ee iskuulka la dhigata arintaas ayaa keentay in ay aad ugu farxaan waalidkiisa sababtoo ah wuxuu noqday arday ka tilmaaman ardayda kale iyadoo aan ognahay in xaalad aad u adag uu ku wax barto Guhaad iskuulku wuxuu dhigan jiray subaxda hore saacadu markay ahayd 7 subaxnimo wuxuuna iskuulka iman jiray isagoo aan soo quraacan wuxuu fasalka soo gali jiray isagoo aan afkiisa waxba soo saarin waxa kale oo jirtay marka ardaydu ay banaanka hore ay ku sameynayaan conversation ama wada sheekaysiga oo practice ah waxa caadi ah in ardayda ay iibsan jireen cabitaan shaaxiga iyo waliba cuntooyinka fudud Guhaadna midna uma suura gelin in uu iibsado sababtoo ah wuxuu ahaa nin jeeb maran maalin maalmaha kamid ah wuxuu nasiib u yeeshay inuu practice la qaato mid kamid ah gabdhaha iskuulka dhigata isma aysan aqoon marka laga reebo in qof walba oo qofka kale og yahay oo kaliya in iskuulka uu dhigto waxaana gabadha ay codsatay in ay wada sheekaysi ay la yeelato waliba iyadoo kula hadlaysa luqadda Ingiriiska Guhaad ayaa si fudud ugu aqbalay waxaana halkaas ka bilowday wada sheekaysigii waxaana la isweydaarsaday su'aalo iyo jawaabo isku xiran mararka qaar waxa la isweydiinayay su'aalo private ah oo quseeya qof walba noloshiisa waxaana taas ay fududeysay in gabadhan oo lagu magacaabo Firdawsa ay ogaato in Guhaad uu ku nool yahay nolol aad u adag waxaana la kala qortay ciwaanada laakiin Guhaad wax ciwaana ma uusan lahayn sababtoo ah xilligaas aad bay u yarayd dadka wata telefoonada gacanta mana jirin social media ee hadda ay sida weyn looga isticmaalo dunida waliba dariska ka agdhow iyaguna ma lahayn laakiin waxa uu qortay telefoonka laga helo gabadhaasi la soco qaybta labaad sheekadii aan ugu magac darnay jacayl faqiir galay fidnadiisu badana